Assalaamu calaykum walaalayaal. Isku soo noqod waxaan oo wanaagsan. Waa anigu walaashin hani oo ina leh. Mar kale ku soo dhawo qiso cajiib badan. Wallaahi waxaan aaminsanahay qisadan inay ku taabani doonto. Qisadan waxay dhex martay wiil iyo hooyadiis. Haddaba qisada sidatan ayay u dhaxaysaa. Waxay ahayd maalinta loo dabaaldego hooyooyinka. Hooyadiis ayuu wuxuu u soo iibiyay telefoon si uu farxad oo la qaybsado maalintaas. Markii uu u keenay ayay ku tiri, "Waa maxay hooyo kani? Aniga telefoon hore ayaan u haystay. Mana garanayo si loo isticmaalo telefoonkan." Markaas ayuu wuxuu ku yiri, "Hooyo miyaad u baahneen telefoonka laga isticmaalo aaladda Facebooka?" Markaas ayay ku tiri, "Waan rabaa." Oo madaxa ayay u galgashay. Wuxuu ku dhahay, "Aniga ayaa ku barayaa hooyo hadda." Telefoonka kor u qaba ayuuna ku yiri. Waxayna isla galeen sawir ayadoo waliba dhoola cadaynayso. Wuxuu dhigay bartiisa Facebook asagoo ku qorayo, "Waxay ahayd maanta maalinta hooyooyinka loo dabaaldego. Waxaana ugu talagalay hadiyadan hooyaday macaan." Maalintii markay soo dhamaatay dabaaldega ayay waxay u imaatay wiilkeeda waxayna ku dhahday, "Hooyo sidee loo hagaajiyaa WhatsApp groupka?" Markaas ayuu ku dhahay, "Hooyo waa caadi. Sidee u aragtaa haddaan kuu sheego wax yar ka bacdi? Hadda waxaan rabaa inaan bogo shaqadan." Maamadii shub ayay iska dhahday iyadoo wali sii fiirinaysa telefoon ayaana wiilku soo dhacay wuuna ka soo kacay meesha. Intii xigta haddana way ku soo kalahday iyadoo ku qaylinayso, "Hooyo wiilkaygiiyo soo mi baraysi sida lacagta loo diro." Markay meesha imaato waxay aragtay wiilkeeda oo hurdayo. Haddana dib ayay iskaaga laabatay hooyadii. Ma quusanin haddana salaada asagoo shaqo u jeedo ayay qabatay waxayna ku dhahday, "Hooyo waxa ay tustaa sida Facebook sawir loo dhigo." Markaas ayuu ku dhahay, "Hooyo waxaan ku tusayaa berri." Markuu shaqada ka soo laabtay ayay telefoonka kor u qaaday micnaheedu ah hoo i tus. Markaas ayuu ku dhahay, "Hooyo hadda waan daalanahay ee mar kale." Hooyadii kuma qayl ku dhahday, "Haye waa diyaar wiilkaygii." Wuu soo baxay oo wuxuu jikada ugu soo galay walaashiis oo la dhihi jiray Caaisha. Wuxuuna ku dhahay, "Sidaan hooyo telefoonka u siiyay markasta waxay i weydiinaysaa su'aal midba mideeda kale ahay waa inaan tusnaa sida lacagta loo diro anagoo isticmaalayna telefoonka." Markaas ayuu ku dhahay gabadhii, "Maxaad u moodaa inay samayn karto?" ayuu weydiiyay gabadhii. Markaas ayay ku dhahday, "Hal asxan ii fal. Waxaad ii karisaa qudaartan." Markaas ayuu ku dhahay, "Yaa ayuu dhahay, "Haa ayay igu jawaabtay." Markaas ayuu wuxuu dhahay, "Sideen u karin karaa aniga?" Markaas ayay ku dhahday, "Waa maxay sababta aad u karin karin?" Markaas ayuu ku dhahay, "Waa caadi, balse haddaad i barto waan samayni karaa." Sax ayay ku dhahday Faaruun, "Haddaa hooyo si wanaagsan aad u barto, inta kalena ayada ayaa awooday inay hagaajisato." Miyaysan saas ahayn ayay u raacisay. Caaisha kama tagin walaalkeed oo dib ayay ula hadashay waxayna ku dhahday, "Lacalla hadday gacantaada ugu jiri lahayd qalinka iyo qardaasta miyaad wax bari lahayd mise aad u qori lahayd?" Faaruun wuxuu ahaa wiil aad iyo aad u caqli badan oo hadalkii walaashiis dhagaha iskama tirin oo casharo ayuu ka qaatay wuuna fahmay waxa oo la jeedada ay leedahay. Wuu soo baxay oo wuxuu soo aaday dhanka hooyadiis. Wuxuuna u imaaday hooyadii oo telefoonka ku wareersan. Wuu ag fadhiistay oo wuxuu ku dhahay, "Hooyo, miyaan ku kala tutusi karaa?" Markaas ayay aad iyo aad intay u faraxday ay dhahday, "Haa hooyo wiilkaygiiyo u tus." Qisadayna quruxda badneed halkaas ayay noogu dhamaatay oo dhex martay wiilkii iyo hooyadiis. Balse cimri qaadashada ayaa waxay tahay hooyadaada u naxariiso adigoosan wax ahayn ayay ku jirsiisay. Heerka maanta taagan tahana ayada ayaa ku gaarsiisay. Ilaahayo hooyooyinkeena noo daa. Inta hooyadood ay dhimatana Ilaahu janno firdawsa ka waraabi. Waxaa qisada quruxda badan inala socodsiinaysay anigoo walaashin hani ah. Fadlan muuqaalka like garee oo na dareensi inaad ka heshay. Wixii fikirkaaga ahna commentiga noogu reeb. Haddaa nagu cusub tahay soo dhawaaw oo subscribe noo saar. Gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya qisooyinka cajiibka badan markasta aan soo gelino. Waana ku mahadsantahay sida quruxda badan aad u dhamaystirata muuqaalka. Inta muuqaalkiisa xiga ku kulmi doono. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.
كلام أخته صحيح، ومباشرة توجه إلى أمه وهي جالسة. ولا تعرف كيف تستخدم الهاتف، وقال: أمي، دعيني أساعدك لكي تتعلمي ذلك. ابتسامة الأم في هذه اللحظة صدقا أثلجت قلبي. أخبر أمك بكل شيء، وعلمها واجعلها تعرف أكثر منك حتى. بيوم من الأيام دخل هذا الشاب إلى أمه وهي في المطبخ، وأخرج لها من جيبه هاتفا جديدا أحضره لها هدية بمناسبة عيد الأم. ابتسمت الأم وقالت: يا يمه، ما في داعي للجهاز الجديد، أنا أصلا ما أعرف كيف استخدمه. الابن قال: يا أمي، أنت تريدين هاتف لكي تستخدمي فيسبوك، أليس كذلك؟ هزت الأم رأسها. قال: أنا سوف أعلمك عليه يا أمي. وتصور صورة سيلفي مع أمه وأنزلها على فيسبوك. وبعد مرور أيام من عيد الأم دخلت الأم إلى ابنها وهو في غرفته، وقالت له: كيف يمكنني أن أنشئ جروب على واتساب؟ ولكن الابن تفاجأ وقال: أمي، ما رأيك أن أعلمك ذلك لاحقا؟ ولم يعطي أمه اهتمام. تغيرت ضحكة الأم. وهنا قالت الأخت لأخيها: أترى، هذه هي الحقيقة. لو أنك تعلم أمي كيف تستخدم الهاتف لو لمرة واحدة، لكانت اليوم تستطيع استخدام الهاتف بدون أن تحتاجك. وقالت له أيضا: لو أن أمك لم تمسك الورقة والقلم وتعلمك وأنت صغير، هل كنت تستطيع الكتابة الآن؟ وهنا صدم الشاب وعرف أن كلام أخته صحيح، ومباشرة توجه إلى أمه وهي جالسة. ولا تعرف كيف تستخدم الهاتف، وقال: أمي، دعيني أساعدك لكي تتعلمي ذلك. ابتسامة الأم في هذه اللحظة صدقا أثلجت قلبي. أخبر أمك بكل شيء، وعلمها واجعلها تعرف أكثر منك حتى.